weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari laangaruusal ah ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeyay ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacada ah inkastoo weerarka uu bilowday xilli hore oo saaka ahayd haddana khasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid ah ciidamadii howlgalka ka qayb galay taliyaha ciidanka danab ee galmudug Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof ayaa ka warbixiyay kadib markii la soo gabagabeeyay iskoorimaadkii u dhaxeeyay kooxihii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay. Bismillah alxamdulillah waxa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahayd markay ahayd saacada 12kii subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin wali meelihii dagaalku aan kula galnay maan ka raadinaynaa aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacab ah degan guryahoodii ay bam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ciidanka magaalada jooga iyo booliiska iyo nabad sugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan. Ali Abdi Faarax abaanduulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd. Bismillahir Rahmaanir Rahiim meeshaan sidii taliyaha danab u sheegay abaartaaka 12kii subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socda ka dhaceen khasaaro badan waa jira dhimasho iyo dhaawac leh haddeero 2 saac iyo baraha la soo afjaray wixii khasaaro ah oo shacabka xaqiisa dib baa ka soo sheegi doonaa wali wax nooma xaqiiqaysna laakiin hal deerba howlgalkii la soo afjaray ciidamada danam iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nabad sugidda iyo booliska inta waa la wada howlqaatay shacabkiiba hal deer ayaana la soo afjaray wixii khasaaro ah oo shacabka gaarana dib baa ka soo sheegaynaa iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyaga kamid ah ninka isqarxiyo ku jiro wixii kale oo faahfaahino intaas dheerna dib baa ka soo sheegaynaa haddii ilaahay yiraahdo goobtu sida hadda boorarkeeda uga jeedna kulleeyada niman culumaha deganaa boorar baa ku aragnaa culumaha deganaa taliya ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Cabdirasaaq Maxamuud Faracade oo ka mid ahaa saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday ayaa VOA u sheegay in ay wadaan baaritaano xoogan isla markaana ay jiraan xogo muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta Sheekh Cabdiwali waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada galmudug ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa 4 haween oo ka tirsanaa xerta wadaadka qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo Sheekh Cabdiwali Sheekh Cali Cilmiyare oo ahaa wadaadka la weeraray howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab kuwa militariga ee gobolka Mudug booliska iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda galmudug ayaa suurta galiyay soo afjaridda weerarkii tooska ahaa waxaana goobta lagu soo bandhigay meydadka ilaa 4 ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo gaalkacyo ka dhaca waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskoorimaad hubaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhaca kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab mas'uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan waxayna sheegteen in koox ka tirsan shabaabku ay howlgalkaasi geysteen